bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa iska horimaadyo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Kaabuul iyo Daalibaan oo dib u qabsatay gacan ku haynta 3 degmo oo ka tirsan gobolka Baqlaan ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka madaarka Kaabuul ayaa iska horimaad ku dhaxmaray ciidamada ammaanka Afghanistan iyo kuwa heebtooda aan la garanayn halka Daalibaan ay ku dhawaaqday dib u la wareegista 3 degmo oo ka tirsan gobolka Baqlaan waxayna u dirtay ciidamadeeda si ay ula wareegaan gobolka Banshiir waqooyi bari oo ah dhufayska Axmed Shaah Mascuud afhayeenka Daalibaan Dabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in ciidamada xarakada ay gabi ahaanba dib ula wareegeen gacan ku haynta degmooyinka Baanu Bulxasaar iyo Waadi Silaax ee Baqlaan Dabiixullah ayaa intaa ku daray in Daalibaan ay go'doominayaan gobolka Banshiir kadib markii tiro ka mid ah hogaamiyayaasha militariga ee ka soo horjeeda Daalibaan ay diideen inay soo dhiibaan wuxuu carabka ku adkeeyay in Daalibaan ay isku dayayaan inay ku xalliyaan xaaladda Banshiir wadahadal wariyaha Al Jazeera ee Afghanistan oo soo xiganaya ila ka tirsan dhaqdhaqaaqa Daalibaan in mintidiintiisu ay u suura gashay inay galaan dooxada Banshiir waxayna sugayaan awaamirta hogaamiyayaasha militariga si ay weerarka ugu qaadaan xarunta dawladda ila wareedyada ayaa sheegaya dhaqdhaqaaqa Daalibaan inay la fureen wadahadal Axmed Mascuud oo ah wiilka Axmed Shaah Mascuud si nabad ah si ugu wareejiyo gobolka Banshiir hase ahaatee wadahadalladu waa ay sii socdaan xogtu waxa ay sheegaysaa in xarakadu ay dhawaan u diri doonto wafdi arintaas si dhow uga wada xaajooda isla markaana bixiya damaanadaha laga maarmaanka ah ee uu codsaday Axmed Mascuud jabhad ayaa looga dhawaaqay dooxada Banshiir waqooyi bari ee Kaabuul halkaas oo ay iskugu soo urureen haraadigii ciidamada dawladii hore iyo kooxa maleeshiyaad ah gobolka Banshiir ayaa ah meel ay ku xoogan yihiin dadka ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa Daalibaan jabhadan ayaa hogaaminaya Axmed Mascuud oo ah wiilka hogaamiya Axmed Shaah Mascuud oo ay al-Qaacida dishay 2001 Daalibaan ma aysan xukumin Banshiir muddadii hore ay xukumayeen dalka intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2001 afhayeenka jabhadda Cali Maysam Nasaari ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in jabhadda wadaniga ay diyaar u tahay iska hor imaad muddo dheer ah laakiin ay wali raadinaysa inay Daalibaan kala xaajooto dawlad loo dhan yahay dadka ka agdhow Mascuud ayaa sheegay in ka badan 6,000 oo dagaalyahano ah oo ka soo haray ciidamadii hore iyo ciidamada gaarka iyo sidoo kale kooxa maleeshiyaad ah ayaa isugu soo ururay dooxa oo ay la socdaan qaar ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gaadiidka dagaalka waxayna sheegeen inay dayactireen qaar ka mid ah gawaarida gaashaaman diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo kuwa kale ayaa shaki ka muujiyay awoodda kooxahaas inay iska caawin doonaan iyo in kale marka la eego kaalmo la'aanta dibadda iyo baahida loo qabo dayactirka iyo joogteynta hubka wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni raadka dhacdooyinka magaalada caasimadda ah ee Kaabuul dagaal foolka fool ah ayaa maanta ku dhaxmaray ilinka waqooyi ee madaarka ciidamada ammaanka Afghanistan iyo kuwa aan heebtooda la garanayn dagaalka ayaa lagu dilay xubin ka tirsan ciidamada ammaanka ee Afghanistan 3 kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale dagaalka waxaa ka qayb galay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Jarmalka ciidanka Jarmalka ayaa xaqiijiyay inaysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamadooda intii lagu jiray weerarka garoonka wararku waxay intaasi ku darayaan maleeshiyaad aan la garanayn haybtooda ayaa ku weeraray hub fudud irada waqooyi ee gigida diyaaradaha taasoo ilaa hadda ay gacanta ku hayaan haraadiga ciidamada gaarka ah ee dawladii hore ee Afghanistan wali lama oga inuu jiro khasaare soo gaaray kooxihii weerarka soo qaaday iyo in kale sidoo kale kooxdan ilaa iyo imanka lama garanayo ujeedada ay weerarka ugu qaadeen madaarka balse warbixinada qaar ayaa tilmaamaya inay doonayeen inay galaan garoonka diyaaradaha si ay u furaan albaabka taasoo u suura gali lahayd dad aad u badan oo doonaya inay ka baxaan Afghanistan
maadaama iridan ay u dhowdahay dhabaha ay ka kacaan diyaaradaha daadguraynta. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa hore u sheegtay iyadoo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah in Taliban ay xoojisay ciidamadeeda ku sugan garoonka diyaaradaha Kaabul iyo nawaaxigeeda, isla markaana ay qaada talaabooyin lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa bixitaanka. goobjoogayaasha ayaa sidoo kale soo sheegay inaysan jirin dhaawacyo halis ah oo ka dhashay halka safaf dhaadheer laga sameeyey garoonka diyaaradaha hortiisa. Mullah Fadhi oo ah sargaalka amniga ee Taliban u qaabilsan garoonka caalamiga ee Xamiid Karzai ayaa sheegay inuu filayo in madaarka uu u furmi doono rayidka maalmaha soo socda. wuxuu xaqiijiyey in xanuun uu dareemayo markii uu arkay haween iyo carruur dhulka jiifa oo ku dhaawacmay isbuurashada maanta ka dhacday madaarka.